markaan la keenay oo loogu talagalay in gabdhuha iyo dumarka waaweyniba ku ciidaan ha ka qadina baan idin leeyahay maasha Allah tabaarakallah Allah barakeeyo stoorka hadda laga faa'iideysto Allah barakeeyo leenahay Allah barakeeyo sayna waxaan leenahay guriga hambaliya baan u leenahay mar haddii baahidii dadkii yaana dabaqada sare ama sayda doonayaad keentay wuxuugii guriga baan ku leenahay meherada Saynab Miisaan ayaa laga daafuray magaalada Boorama gaar ahaan dhismaha Miisaan ee ka soo horjeeda jaamacadda Eelo waxaanad ka helaysaa dhammaanba agabkii ragga iyo dumarka oo dhammaystiran kabihii cadaradii dharkii ciidda Saynab Xaaji Miisaan mulkiilaha meherada ayaa faahfaahin kooban ka bixinaysa adeegyada laga helayo iyadoona soo dhaweysay macaamiisheeda iyo kuwa cusubba waxaan daahfuraynaa meherad magaceedu ku suntan yahay Saynab Miisaan oon ka furayno dabaqa Miisaan meheradaasi oo in badan ku soo shaqeynaysa gudaha aqalka dhexdiisa maanta sabanaanka u soo baxday ayaa waxaan ku daahfuraynaa halkan meheradaasi waxay ka kooban tahay alaabo badan sida markaasi khamiisyada ragga cabaayadaha toobabka duraaxadaha cadarada noocyadooda kala duwan unsiyada noocyadooda kala duwan koofiyadihii kabihii ragga ee sandalka ahaa macawisihii adu maasha Allah waa meherad markaan ugu talagalay shay kasta oo tayo leh in laga helo in badan dadkeenu waxbay gataan laakiin maanta markay gataan barina way ka maran yihiin marka waxaan isku taxallujiyay in badan aan soo waday inaan dadka had iyo gooraale u horseedo inaan u keeno wax tayo leh oo muddo ku soconayaan hadday kabaha noqoto iyo xagga khamiisyada noqoto iyo cadarada laftooda way la yaabaan marka hore dadku laakiin marka dambe aad bay u bogaadiyeen waxaan shaygii aan iibsanay ama kii aan qaadanay shay aad u fiican buu ahaa aad baan ugu mahadcelinayaa martida ka soo qayb gashay dhamaantood waxaan rajaynayaa bisha barakaysan ee ku jirnay caawa 16 ah ee Ramadaan Ilaahay subhanahu wa ta'ala inuu acmaasheena aqbalo dhamaan ku naarta ku xoreeyna Ilaahay subhanahu wa ta'ala inagu daro inaahina inoo barakeeyo waana waqti ciid ah oo waqtigii loogu baahi badnaa in dadku wax iibsadaan ay gataan waan soo dhaweynayaa dhammaan macaamiisha horeyna igu xidhnayd iyo inta dambe maanta igu xidhmi doontaba waxaan ku soo dhameynayaa gacmo furan baan ku soo dhaweynayaa iyo qalbi markaasi aad u saliim ah soo dhawaada baan leeyahay waa meheradiini waa meeshiini dhammaantiin ku soo wada dhawaada idinkoo nagala kulmi doono markaasi service aad u wanaagsan oo ku farxi doontaan inta kadib madaxdii kala duwanaa ee ku sugnaa goobta ee kala soo qayb galay daahfurka meherada ayaa bogaadiyay soona dhaweeyay quruxda iyo udgoonka yaan aad ugu faraxsanahay maasha Allah tabaarakallah waxaan leenahay Allah barakeeyo anu waxaan ahaan jiray dadkii ku xidhnaa Saynab oo ka iibsan jiray guriga markay joogto alaabada runtii alaab quality leh oo cajiib ah ayay keeni jirtay haddana waxaan rajaynayaa in intii ka sii dheerayso ay ka sii badiso marka waxaan leeyahay hada dadka reer Boorama maanta markaan soo galay dukaanka waxaan isiri talow meeshani ma Boorama mise waa meel kale alaasha waan qaadan waayay laakiin waa Boorama weeye waa Miisaan building ku soo dhawaada baan leeyahay reer Boorama ciidda ka soo hayana ha ka qadina dharkaan la keenay oo loogu talagalay in gabdhuha iyo dumarka waaweyniba ku ciidaan ha ka qadina baan idin leeyahay maasha Allah tabaarakallah Allah barakeeyo stoorka waana salaamaya dhamaantiin waxaa la idinku soo dhaweynayaa gacmo furan waxaan idin leenahay waxaad kala kulmi doontaan insha Allah ta'ala alaab tayale alaab ku qancisa alaab run ahaantii tii aan raadinaynay alaabtii dharkii aan raadinaynay ama kabihi aan raadinaynay ama cadaradii aan raadinaynay ama cabaayadii aan raadinaynay intaba waa laga rag iyo dumarba isku jiraan waxaan rajaynaynaa insha Allah ta'ala in halkan la iskugu iman doono ciidii oo fooday nagu soo haysa iyadoo bilaabantay waqtigii taswiiqa ama suuqa ee alaabta la iibsanayay haday tahay dharkii iyo haday kabihii tahay imaamadii haday tahay qamiisyadii wixii oo dhan waxaan ilaahay soo dhawaada aadna waan ugu faraxsanahay insha Allah ta'ala waxaan rajaynaynaa inay meheradani ay noqoto meheradaha ugu qiimaha badan gobolka Awdal ama Soomaaliland bay kamid noqoto ilaahay waxa barina subhanahu wa ta'ala walaashin Zaynab oo marka horeba ganacsiga si afkeeda hadda kaga dhawaajisay guriga ku ganacsan jirtay imkana soo shaabixisay oo meherada nu furatay bisha barakaysan waxaan ka baryaa ilaahay subhanahu wa ta'ala inuu meherada u barakeeyo waxyaabaha indhahaygu ay qabanaha ka muuqda halkan waxa kamid ah cadaradii
unsiyadii khamiisyadii cabaayadihii kabihii koofeedihii macawisihii waxyaaba aad u fara badan oo tayo leh marka ilaahay subxaanahu wa tacaala waxaan ka baryaynaa inuu u barakeeyo bishaa barakaysan ee kusoo beegtay darteen iyo ciiddaa foodeena nagu soo haysa bulshadana waxaan leenahay qalabka iyo badeecadda iyo alaabtaa tayada leen ku soo dhowaada hadna laga faa'iidaysto allahu barakeeyo leenahay allahu barakeeyo sayna waxaan leenahay guriga hambaliya baanu leenahay mar haddii baahidii dadkii yani dabaqada sare ama sayda doonaya aad keentay wuxuugii guriga baan ku leenahay sayna loo cabsan maayo bacmushirkeyga waayo asalkeygaba waxay ku abtirsataa aba ganacsi Xaaji Axmed Miisaan Aare oo odayshiini waaweynaa ee ganacsiga la lixdamaadkii ah ayaa waxay tahay qoyskiisii bay ka mid tahay marka ganacsi way taqaanaa oo abtirsintaas oo haysata marka ilaahay waxaan u baryaynaa walaasheen inuu barakeeyo oo noqdo mid midho leh noqdo mid ummadda noqdo ma taqaanaa example wanaagsan oo lagaga daydo waxaan leenahay bahdeeda qurba joog ah saasay qulqul joogi u shaqeynayaan oo ummadooda ugu shaqeynayaan waxa la idinka baahan yahay idinkuna inaad soo minguurisaan wixii dibadda aad ku aragteen wanaaga oo si la iskugu daydo si loo tartamo oo tartan xor ah ummadda dhexdeeda u helaan waxay ku suntan tahay Zainab oo aanu kamid ahaa dadkii marka hore ku xidhnaa ee markii guriga ku iibin jirtay macmiilkeega kamid ahaa alaabaha ay keenaysa inay yihiin alaabo tayo leh khamiisyo fiican oo ku raaxaysato si fiican ugu cibaadaysato iyo cadaraad udgoon ayaan markii hore ku aqaanay maharadii maanta in dibadda loo soo saaraana waxay keenaysaa in bulshadii adeegii si fiican u wada gaadho dadku ay ka wada faa'iideystaan oo ay arkaan bulshada waxaan ugu baaqaynaa inay maharadan cusub ku xidhnaadaan macaamiisheeda ka mid noqdaan ganacsiga ay koriyaan waxaan ugu ducaynaynaa Zainabna inuu Ilaahay subxaanahu wa tacaala ganacsiga Allah u barakeeyo mid rizq xalaalo waasic Ilaahay subxaanahu wa tacaala oo ka dhali Allah ka dhigo Zainab Xaaji Miisaan oo ka daafurtay moolka cusub ee la ka soo horjeeda oo markaasi mool cusub oo laga furo meherado badan gaar ahaan marka caawitaanu joognaayay oo meherada ay Zainab Xaaji Miisaan ay furtay iyadoo meheradu sida hore u sheegtay hore u sii jireysay aanan kamid ahaa macaamiisheeda ka adeegta gaar ahaan khamiisyada ragga iyo kabaha haday noqoto iyo cadarada udgoon oo kuwa ku astaysan tayo aan ka qaadan jirnay kale waxaan ugu baaqayaa gaar ahaan dhalinyarta inay ka faa'iideystaan fursadan iyada iyo dharkan la keenay qiimaha macquulka ah iyo tayada le waliba gaar ahaan iyadoo markaasi waqtigii ciiduna ay foodeen ugu soo hayso waa meherad tayo ku astaysan oo rajaynayna insha Allah tacaala dhalinyarta iyo gaar ahaan bulshaweynta ay maxaan gobolka Awdal gaar ahaan degmada Boorama inay ku xidhmaan kana faa'iideystaan meheradan la furay oo ku astaysan markaasi dhar tayo leh waxaana walaasha u rajaynaynaa insha Allah tacaala inuu meheradan Ilaahay u barakeeyo warbaahinta Cishqi TV Boorama